la taliyihii madaxweynaha arrimaha dibadda Cabdo Axmed Ayro maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Burco ayaa waxa uu si rasmi ah u shaaciyay inuu iska casilay xilkii la taliyanimo uu ka hayay xukuumadda Somaliland waana kan isagoo ka hadlay arrimahaas. waxaa markhaati doona inaan kuwii saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland aan arugu ka mid ahay waxaan uga mahad celinayaa runtii inuu ii gartay inaan mas'uul ka noqdo gobolka Togdheer oo uu Barasaab iga dhigay waxaan uga mahad celinayaa inuu gobolka Awdal Barasaab iga dhigay waxaan uga mahad celinayaa inuu iga dhigay la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda anigoo intaas oo dhan waxaan dareemayaa anigu joodigayga waxaan doonayaa inaan Burco ku idlaysto oo aan ku soo noqdo oo dib u dhis u sameeyo oo ku walaalayo kama bixin xisbi kama bixin meel kale waxaan doonayaa maanta inaan cadeeyo inaan mas'uuliyadii anigoo jecel inaan la wado mas'uuliyadii iyo xilkii dawladnimo ee aan u hayay ee aan ku magacawnaa ee ahaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda inaan goobta tan oo reer Burco aad igu maqashaan inaan iskaga casilo وعبد السلام أحمد عود عبد جرماني ورك مقالة برعو.